ma ogtahay markii uu burburay midowga Soviet Ukraine ay noqotay dalka saddexaad ee adduunka ee haysta madaxyada nuclear-ka ugu badan in ka badan 1800 oo madax oo hubka nuclear-ka ayaa yaalay Ukraine xilligaas laakiin halkan ay arrintu isku bedeshay Ukraine dhab ahaanta ma ridi karin hubkaasi furayaasha lagu kiciyo nidaamka taliska iyo go'aanka ugu dambeeyay waxay gacanta ugu jireen magaalada Moscow Ukraine waxay haysatay hubka laakiin Ruushka ayaa hayay furaha lagu kicinayo ama nidaamka lagu ridayo tanina waxay Ukraine ka dhigtay mid khatar ku ah caalamka maadaama laga baqay inay iyadu samaysato furaha lagu kicinayo hubka isla markaana u nugul cadaadiska dibadda Mareykanka Yurub iyo Ruushka ayaa dhamaantood ku cadaadiyay magaalada Kiev inay hubkaas iska dhiibto ku wareejiso dalka Ruushka waxayna ka digeen in hub nuclear uu ku jiro gacanta dawlad cusub uu yahay mid aan la aqbali karin sidaa darteed sanadkii 1994 waxay Ukraine saxiixday heshiiska Budapest Ukraine waxay tanaasul ku sameysay oo wareejisay hub kasta oo nuclear oo ay haysatay taas bedelkeedana Ruushka Mareykanka iyo Ingiriiska waxay ballan u qaadeen inay ixtiraami doonaan xuduudaha Ukraine ayna damaanad qaadi doonaan amaankeeda haddaba markaad eegto xaaladda maanta ma kula tahay Ukraine inay ku saxsanayd inay iska dhiibto hubkeeda nuclear-ka